nolosha ku nooshahay furaheedii waa dulqaad. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. runtii ilaahay subxaanahu watacaala wuxuuna siiyey nimcooyin fara badan. nimcooyinka ilaahay subxaanahu watacaala uuna siiyey nicmada ugu weyn waa nicmatul islaam, inuu ilaahay subxaanahu watacaala islaam naga dhigay. dad badan nimcadan ilaahay subxaanahu watacaala uuna siiyey ma haystaan. dadka qaar waxaa laga yaabaa inay ku dhashaan iyagoo gaalo ah. waxaa laga rabaa markasto in ilaahay subxaanahu watacaala aad ku shukriso. waxaad ku shukrinaysaa nimcadan aad bay u weyn tahay. waxaa kaloo laga yaabaa qof adiga murug kaa qaaday, mise ku saaciday, mise wax aad ku farxda kuu sheega. qofkana waxaa laga rabaa in marka hore in ilaahay subxaanahu watacaala aad u mahad celiso, waayo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa kuu soo diray qofkan inuu ku raaligeliyo oo war fiican uu kuu sheega. marka waxaa laga rabaa inta adduunka aad joogto mar kastoo waxaa ku dadaashaa in ilaahay subxaanahu watacaala aad u mahadnaqdo. ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanku wuxuu ku leeyahay la-in shakartum la asiidannakum. haddaad shukrisaan anigana waa nii ziyaadinaya. yaa ka qurux badan marka ilaahay subxaanahu watacaala daqiiqad kastoo aan ku shukrino, aan ku mahadnaqno ilaahay subxaanahu watacaala nimcooyinka fara badan uu nagu muteystay adduunka intaan joognaa.